السلام عليكم أصحابتي دمانتين وأنا السلامة سلاك دي waxaa kasoo hadlaya istaal dalmar sawad ogtiin walaalkayga sanka laga qalay dadka oo khuriyo sanka maaragtay hilibkaga yaalo waaye alxamdulillah filani maanta waa lagu guuleystay asagoo nabad qaba hadda gurigiisa u wada ma fahanteen istaal dalmar yani haddii qalliin la dhaho sanka waxyaalaha hadda u baahantiin meesha yani mar said u fiican tahay dhakhaatiir said kugu adeegaya yani dad oo said u fiican istaal dalmar yani kad said u bartay hadda u baahan tahay qalliin hadda khuurinaysid adoo soconaysid soo muhiim waaye inaa khuuradan iska ilaaliyo oo sanka hilibka kaaga yaala iska jirtid soo istaalkan istaal said u wanaagsan waaye ani hortay dadaal saas camal loogu sameeyay kadib anaa kasoo arkay imaaday inayna xarajeynaya inay imaataan sida maaragtay caafimaadkii nooga fikirtaan dhammaantiina istaal dalmar step by step markasta ma garateen yani si loogu shaqeeyay si qatar dad fiican dad wanaagsan inta maalmood istaalka ku jira walaalkay ku hayay wax dhibaato kale ma kulmin istaalka waxba laga ma qaban karo team soo hadalkii ka dareemaysin way fahmoosin istaal dalmar soo follow gareeya ha ka welwelina istaal dalmar gacanta u fadhida dhakhtarin gacanta u fadhido aan ka hadal lahayn caafimaadkiina waa laga shaqeyn doonaa saas la wada ognaa timsun soo dhan istaalkan hala weeday ay maado guys saad u fiican Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Yegsigeenu waa caafimaadka